sida uga hadlayna haweeneyda muslimka guriga kaniisu uu dhisnaan karo wuxuu u baahan yahay gurigeenu inuu u ekaado gurigii jannada ka jiray guriga jannada ka jira haweenta joogta hadii la yiri waa urban atraba tani inta ay matali karto waa inay matashaa wax ceeba markaa ma aha marnaba waxa ilaahay xural caynta ku sifeeyay inay gabadha muslimadii ku sifowdo ceeb ma aha ceeb markaan leenahay waxaan u jeednaa ma aha wax laga khajilo alxayaa qayb kamid waa madmuum qayb kamidina waa mamduux waxa sharcigu baneeyay in laga xishooda waa madmuum baylay kuma jirto maxbuubaadka waxa la jeceliyo kuma jirto bal quraanku markuu tilmaamayay ragga iyo haweenka waxa la yidhi uhilla lakum laylata siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna wa min aqwali al-mufassirin fi ar-rafath waxa yiraahdaan hadalka markuu qofku caadigu meel ka hadlayo ka khajilo ama si aanu ku dhiiranin inuu yiraahdo guriga se waa la isu mar dhigtaaba wax laga khajila ma yaalaan sadaradeed kalimatu ar-rafath ay culimadu leeyihiin loo adeegsaday jimaaca oo muqaddamaadkiisa looga jeedo waxay yiraahdaan gabadh badawiyada reer miyiga ayaa qamiis casiya waxbay qaadato xinxinaysatay dabeetana tusbax bay qaadatay baa la yidhi meel bay fadhiisatay way wartay qolaa waxay ku yidhaahdeen ma bacda hada min hada labadana waddo kale foga inaad cusburato mariya xidhxidhato oo iska dhalaaliso haddana aad wardi meel la fadhiisataa waa laba kale fog bay ku yidhaahdeen markaasaa waxay tidhi bay yidhaahdeen beyt ay leedahay ilaahay dhan buu igu leeyahay aanan rabin inaad dayaco dheeldheelkiiyo maradhigadka ninkayga xaggiisana qayb buu igu leedahay aan la rabin inaan dayaco bay leedahay yani labaduba waa bannaan yihiin sawgeed buu nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi isna wuxuu tilmaamaya xadiiska jaamicu saqiirka ku qoran saxiixa uu albaani ku tilmaamayo alaa ukhbirukum binisaa'ikum min ahli aljanna ma idin sheegaa buu nabigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi haweenkiina ahlu jannada ah sifada koowaad uu nabigu siiyey wuxuu ku sheegay alwaluud alcauud calaa zawjiha التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى نبي عليه صلوات الله وسلامه عليه هوانك نكو أهل الجنة وحويا الودود وهطني كان جعل كبرنا كسي فوضى جعلك كان أهل الجنة هوانك مسلمات كدوني دجوجة جنة جلية صفدي لوجه الرئيسية وحكم دينا نقطة محي تجعلني كده ووحدة ليسة وعودة خير يونا يقول كده kula noqonaysa ta hadii ay wax dhinto ama iyada la dhibo intay ninkeeda gacanta qabato tiraahdaa wallahi inaana waxba dhadhamin in la raali noqoto mooyaan hadii xataa iyada la dhibo buu nabigu leeyahay ama se iyadoo ay wax dhibto mar kasta waa u taagan inay ninkeeda raali galiso walidalik ayaa Laura Dwayne gabadha la yiraahdo Mareykanka ee le buugan ay u bixiyeen tarjumadiisa azawja almustaslima waxay tilmaamaysaa way gabadh guursatay dabeetana muddo markay joogeen bay ninkeedii istileen waa iska kala tageen waxay leedahay nooc min feminist groupyada iyo baabkan bay ku soo kortay inay ninka iska dhiciso iska celiso waa kaasi markii dambe waxaan fakiray bay leedahay raadiyay maxaan anigu ninkeygii u waayay reerahan jaararkay dadkanina wali xaasaskan isu qabaan dabeetana questionnaire bay qaadato interview bay qaaday interviewgeedii waxa uga soo baxay reer kastoo dhisan inuu yahay reer isu jajaban oo haweentu ay tahay mid ninkeeda jecel oo u jajaban oo waxba ku qabsanin walidaalك baa waxay qortay book ay dhadaan tabcadii koowaad ba 100,000 oo xabaa la qaatay ay u bixisay المرأة المستسلمة استسلمي لزوجك باي بوغا فكردي سودم وانتا نينكو اللباح باي لهدي هدي aad isku soo taagtana uu ku cuni hadaadeen u jajabnaatana afkiisaad kala bixi bay leedahay waxa ku jira sadaradeed jajabnay isdiib bay leedahay wax kasta waa lagu siinaya hadaad adigu isdiibto wax kasta waa lagu siinaya sadaradeed baa Aisha waxay leedahay nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi ayaa intaan weel wax ku cabba nabiga ayaan u dhiibay leedahay dabeetana markaan u dhiiba wuxuu eegtaa nabigu halkii aan waan af ka saaray reerkeedu ku yaalu ka dabacbaa nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi yani waa guri reer ku wada nool sadaradeed waxay leedahay weelkii aan wax ku cabay markaa nabiga u dhiibo halkii aan afka ka saaray weelka ayuu nabiguna salawaatullaahi wa salaamu alayhi afka ka saaray waxay leedahay araq waa lafta hilibka waliba markaa inta badan laga dhameeyo wax yaroon ku sii hadhareen laf baan feentaayo halka aan ka goostay oo intaan feentaan u dhiiba halkii aan ka goosto isna ka sii feentaa bay leedahay nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi yani Aisha dhaqankan waxay u soo guurinaysaa in muslimiinta barto nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu alayhi sidoo dhaqmay waxay tilmaamaysaa guriga sidoo uga dhaqmayna ahayd weelka haweentiisa wax ku cabtay halkay afka ka saartay inuu afka ka saaray waxay tilmaamaysaa iyadoo xayd leh inuu dhabteeda ku tiirsanayo ku jiifsanayo habeenkii picnic baan wada bixi jirnay bay leedahay waa israaci jirnay tanazzuh waa nabi iyo rasuul waliba goorma jooga dhowriyo konton jira oran anigu oday baan ahayo de dhalinyarada raacda islaamaha ee aruma daba galama waa nabi rasuul
rasuulah oo dhowriyo konton jira calayhi salaatu wasalaam oo la socda haweenkiisa tii u da'yaray gabadh dhowriyo 10 jira la socda waa Madiina iyo nabi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo dhowriyo konton jira ayaa waxay leedahay biknik baanu wada bixi jirnay bale waxaad ka garan kartaa nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi ma qarsanaynin xataa kalgacalka inaga waxa laga yaabaa ninku nin Soomaaliyeed bal ku dhaga gabadhaada ma jeceshay ghayru macquul waxaasi wax af la soo mariyo way ka weyn tahay nabi maxamedna inta saxaabada u yimaadeen bay dhahay ilaahay rasuulkiisiyo dadka yaad u jeceshay Caasha buu yidhi nabi maxamed su'aala la weydiiyay dad ba yaad u jeceshay oo yiraahdo Caasha markaasay dhahdeen raggaan u jeednaa markaasuu yidhi Abubakar idan waxa la rabaa waxa weeyaan in gabadhu ay u muuqato dareensiiso ninkeeda inay jeceshay cagsiga waxa kaloo la rabaa ninku inuu muujiyo haweentan kalgacal iyo wanaag inay ku wada joogaan oo jecel yahay maaha aniga iyo tii gurigayga joogtay maraan israacnay ama aniga iyo yani xataa inuu yiraahdo reerkaygii ayuu afka kala warwareegaya marka aniga iyo tii guriga joogtay buu leeyahay asalku laakiin waxa weeyaan nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi intuu guriga soo galo ayuu shaqada guriga wax ka qabanayay oo uu la qabanayay haweentiisa tan bal si uu cawaatifteeda u ilaaliyo haweentiisu jeclaa asxaabteeday jeclayd ayuu nabigu hadiyada u diray Aisha waatii xadiidka saxiixa ku tilmaamaysay saxiix muslim ku yaalay marka neef la qalaba nabigu wuxuu yiraahdaa Khadiija asxaabteedii hilibka wax uga dir hatta Aisha lahayd waligay gabadh kuma hinaasin haweenta dhimatay oo aanan isa soo gaarin sidaan ugu hinaasay bay leedahay sidoo nabigu jacaylkeeda uu muujisanayay aan uu qarsanaynin inuu jecel yahay ayuu muujisanayay bal asxaabteedii dadkii ay ku xidhnayd inuu jecel yahay